nin Kiristaan ah oo qiso la yaab leh warka ku islaamay. wiil dhalinyaro oo Kiristaanimo ku soo barbaaray ka awowna ahaa Masiixi ayaa diinta Islaamka qaatay, waxaana qisada islaamnimadiisa ahayd mid mucjiso ah sida uu sheegay markii uu qaatay diinta Islaamka kadib. wiilkan dhalinyarada ah oo dhalay aaba Kiristaan u dhashay iyo hooyo sidoo kale Kiristaanada Rumeeniya u dhalatay oo kuna dadka Masiixnimada ayaa ahaa 16 jir. sida uu sheegay waxa lagu soo barbaariyay dhaqan lid ku ah diinta Islaamka, markastana laga ilaalin jiray inuu u dhawaado. markii uu dugsiga galay ayuu bartay nashooyin Islaami ah oo lagu dhigto dugsiyada dalka Urdun, kuwaas oo xitaa waalidkiis kala ilaalin jiray inuu xafido ama uu guriga ku dhex akhriyo. waxaana uu sida uu sheegay waalidkii mar walba u diidi jireen inuu akhriyo nashooyinka Islaamiga ah. sida uu ku warramayna waxa ay gaareen xitaa inay ku garaacaan ama se ugu gacan qaadaan. waxaana dhacday mar ay dileen uu ku dhex akhriyay nashida Islaamiga guriga dhexdiisa. laakiin markii da'diisu ahayd ama se gaadhay 15 jir ayuu habeenada kamida manaam ku arkay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. waa sida uu sheegay, waxaana uu sheegay rasuulku inuu ku yiri isoo raac aan salaada ku bare, kadibna uu ku tukaday waxaana ku qarway riyadiisa dhexdeeda, waxaana uu toosay isagoo ku salalsan shahaadateynka. waxa isla markiiba maqlay waalidkiis oo isla markiiba ku soo yaacay, waxayna arkeen isagoo ku dhawaaqaya shahaadateynka, wayna garaaceen, waxayna u diideen inuu dibadda u baxo, isla markaana waxay ku qafileen qolkiisii isagoo muddo ku jiray. kadib maalmo kadib ayuu ka baxsaday gurigii isagoona tagay maxkamad ku taala dalkaas. maxkamadeena waxay go'aamisay in la geeyo meel lagu xanaaneeyo carruurta agoomaha ah, balse uu ku aamin noqon waayay meeshii oo wuxuu ka baqay inay waalidkii ka soo doonaan. kadib waxa uu baxsaday miigana waxaa soo dhaweeyay suldaan halkaas deganaa oo si fiican u sooray, isla markaana magacii ka bedelay hore una bixiyay magac Islaami ah, wuxuuna ugu bagacdaray Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. isla markaana waxa uu sameeyay dhalashooyin Islaami ah wuuna ka bedelay wixii Kiristaanimo la xiriiray. suldaanka wiilka soo dhaweeyna waxa lagu magacaabaa Suldaan Fawsaan Xaamid Asar oo ka tirsan qabiilka reer Cadiya oo dega dalka Urdun. haddii aad xiisanayso qisooyinka noocan oo kale ah ama inaan kula wadaagno macluumaad muhiim ah, waxaad subscribe saartaa channelkan. mahadsanid.